dhammaantiin haddaad meesha ku cusuban tahay fadlan waa iga codsi subscribe ka saar hana iloowin subscribe ka saar waa ii muhiim waa free wax lacag kaa go-aya malahan wax kaa go-aya fartaada le dhag ku siinaysaa gambaleel ku garab yaala isagana ku dhufso midda kale wax kaama go-aya fartaadana waa alamiintee u tahay marka waa caafimaadkaaga marka subscribe-ka ka iloowin saara marka maanta arrin baan rabay inaan ka hadlo arrintan ka hadlayo waxay tahay waa forex anigoo xalayto dhalinyarta la joogo meesha lagu cabayo ayaa qof saaxiibkay igu yiri dhalinyaro Soomaali oo ka shaqeysanaya forex oo wadanka joogaan ayaa laga xire iyo arrimo badan oo isku dhex jiraan ayuu ii sheegay marka isla maanta anigoo YouTube ku isticmaalayo ku jiro ayaan arkay video uu ka soo sameeyay Drizzly YouTuber caan Drizzly kulli waa loo garanayo umaleynaa marka Drizzly video-ga dhalinyarta soo qaataan arkay oo ka hadlayaan in laga xire agency-ga isticmaalaan iyo company-gooda in laga xire marka aqbalona jirta laga xiri karo company-da furto mid ugu horeyso oo ugu muhiimsan dawladda dhinaceeda kugu qabsan karto waa canshuur haddii aad canshuurka aad iska bixiso way adagtahay si ka xirtaa mid ku soo xigto waxa waaye security details ka aad qaadanayso details yar ma ahan kulli waad ogtiin haddaad forex ogeeno u sii dibadda doonaa laakiin hadda horan ku bilaw forex details ka ma koro in la qaato waaye because lacag meel gashanaysa lacagtana something serious way waxa ma ahan jokes iyo gali karto kaftan ma ahan waa arrin serious marka details ka qaadayso details muhiim ah dadka qaadaysa mid kale security loo baahan yahay lacagta lagu dhiibtay ina ka soo bixi karto oo aad privacy iyo arrimihii la isku heshiiyay ka soo bixi karto haddaad ka soo bixiso saddexdaas waa laga yaabaa inay dawladdu ku qabsato haddii saddexdaas aad ka saxan tahay waxaa dhacda kulli Soomaali waan ognahay horumar islama jecelno qof walaalka oo horumar gaaray aragto inay dhaxda ku dhigto soo jiido oo adiga isla jeclaato wixii arrinta adigoo sanata cilmi aan u leeyahay dhalinyartaas laga inay cilmi u leeyihiin haddana maanta laga hor istaagayo tan oo si xanuunka badan oo dhibka badan haday waxooda ay saxsan yihiin dhinaca dawladda iska saxan mid oo durmo wadankooda maanta lagu yeelay wadankaaga hadii san lagu yeelo wixii horumar iyo wixii fiicnaanta aawada in laga hor istaago maxaad u maleysaa wadan dad leeyahay dadka inaad saas ku sameyn karto taas way tan ugu xanuunka badan oo mid laga danqado taas waa dhalinyarta in laga hor istaago waxay horumarkooda iyo wixii cilmi iyo wixii taa soo galiyeen maanta ugu yar tahay kooska ugu yar oo cilmiga ugu fiican ka helayso forex haddii la dhaho online mise haddii la dhaho cilmi dhan ay u yarto $300 $200 ka galaysaa marka qof cilmi galay waa mid kale inuu akhris u sii gala laga yaabaa ayadana maanta dana laga hor istaago ayadana waa dhibkeeda marka dhinaca hadda meesha iska saxan way fiican tahay hadda inta saxiixna ay ka day way garanay aqbaladii lagu dhigan yahay inay iska hagaajiyaan oo iska toosiyaan oo shirkadooda dib loogu soo furaya fiican marka qofka aan forex aan u lahayn kii kalena cilmi dhan aan u lahayn maanta aniga walaalka oo runta ku sheegaya waxba lacagtaada qof ha u dhiibanin lacagtaada dad qof iskaga dhiibto aadan ogeyn wuxuu ku sameeynaayo waxay tahay ayadana waa dhibkeed midda ugu horeyso education waa very vital waa education-kaaga inaad lahaato forex cilmi aad u lahaato forex waa very important fahanteen aniga maanta ku sheegay markuu ugu horeysay aan galay cilmi maansan u lahayn waana lagu khasaaraya boqolkiiba 99 waad ku khasaaraysan cilmi u lahayn meeshaas waa inaad cilmi u yeelataa marka cilmi u yeelataa demo account waxa la jirtaa account lagu sinay lacag ku jirto oo lacag fake aan currency aan ahayn oo real aan ahayn lacagta salaad raawka wixii cosmic aado waxa lagu baraa strategy suuqa meeshaad ka galeed meeshaad ooga bixileed suuqa dhinacu u jeedo dhinacu ka socdo arrimo badan lagu baraa marka arrimihii lagu bara meeshaad ku tijaabin leed demo account ay jirtaa demo account kaas ayaa lagu siinaa marka haday dhacdo in lacagtaada qof iskaga dhiibtay lacagtii haday maanta qasarto way adagtahay lacagtaan isku sii lagu soo celiyo midda ugu muhiimsan waa broker lacagtaad u dhiibanayso ayadana taasna waa muhiim waxa loo baahan yahay inaad raadsato aad sameyso searching aad soo ogaato broker-ga aad isticmaalayso ma broker la recognize garaysan yahay oo adduunyada laga isticmaalayo ma broker oo laga warhayo wuxuu lacagtiisu ku sameynayo oo la regulate garaynayo regulation jirta in lagu regulate broker-ga la ogaado
maalmaalina jirta suuqa zaid u dhacayo marka dadka traders badana oo broker isticmaalayaan fiican oo regulated isticmaalayaan dadaa jiraan ka dambeeyaan marka lacag badan kama khasaaraysid haday khasaarto noqotona loss percentage-kaaga waa la yareynayaa because of the suuqa adiga waxa adiga keensatay maahan dhibaatada isku keensatay trader ku jirtay maahan oo kii kale waa wax dhinaca ka imaada kii kale marka brokeryaashay kaa faa'iidaystaan way yaraanaysaa marka cilmi inaa u yeelato way fiican tahay marka dadka Soomaaliya joogaan video inuu nii soo gaaraan jeclaan lahaa hadduu idiin soo gaaro mid ogaada cilmi u yeeshta intaasan lacagtaada qof iskaaga dhiibin adigoo cilmi u leh haddaa rabto dhiibo lacagtaada lagugu shaqeeyo haddaysan ahayn adigaa ku shaqaysanaysaa uma baahno wax badan ka u badato day traders jiraan 1 hour to 2 hours ay kugu qaadanaysaa inaad trade ka afiiriso dan stop loss waxa la jiraa haddii meesha ay gaarto wuu xirmanayaa haddii meesha ay gaarto take profit ay ku tahay way ku xirmanaysaa faa'iidadaada marka waa wax la yar hagaajiyay oo aansan u baahnayn inaad waqti badan marka cilmi marka hore u yeeshta wax lacagtiin dada iskaga dhiibina midda ugu muhiimsan aan isjeclaano anaga la isku maqan qof kale noo maqan malahan Soomaali shanta Soomaali yaana la iska hor istaagin qof horumarkiisa waa qof walaalka wax ka fiican maahan oo ka farxad badan qof walaalka oo maanta horumar gaare mafahantii waa wax lagu farxo adiga maanta iska qaado sida adiga aad tahay adiga maanta hadaa horumar gaarto maadan ku faraxsanaan leen miya marka qofkiina nigu jirano horumar gaaro qofka walaalka wax qof kale u maqan malahan maanta ha sugina qof cadaan intuu imaado Soomaaliya imaado inuu gacanta nii qabto wax nii kala tuso anaga le walaalnahay marka is garab qabanno hadaa adiga horumar gaarto walaalkaaga wax cilmi aad ku dhaanto si fahansii waxaan wax dhamaanay maan suuqa hashi maalin 5 trillion lagu kala sariftaa marka suuq dhaqsi dhamaanay ma ahan marka hadaa lis caawiyo qofka cilmi ku dhaanto caawi qofka wax ka garanayso caawi marka hadee walaalanahay hadee halis caawiyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا كيلوينا inaad subscribe ii saartiin waatan ugu muhiimsan like comment u share dadka walaalaha dadka ogtahay inaysan ku jiraan forex ee cilmigaas aysan haysan ayagana u share until another next video bye.